soo dhaweynaya soo dhaweynta diyaar إيه مسافة أنا رقاتي ملك ملك يا سلام ملك لا أرصد كاو وي ودقمديني ودنكيني وواx badan baan sugaynay maanta aad aan faraxsan nahay waddankeena maxay ma ka cadeen socodka soo gasheen waqtiga aan soo bixiseen tuuliga soo gayseen aad baan ku soo dhaweynaa ku soo dhawaada halkan magaalo waxa weeye ayaa u saameeyeen laakiin xilligii hadda dawlad goboleedka haweeneyda la dhisay waa meeshii nabadda ugu horeysa laga bilaabay deegaankan ciidankan sideed sano ayay si madaniya ku shaqaynayeen waa ciidan booliis galmudug maaha federaal muddadaas maanta kusoo booqana meesha maamulada deegaanka oo degmada ayaa waxay nagu codsadeen dib u habeyn xoogaa muraajaca shaqo wanaagga booliisnimada inaan siino muddo 20 shaqo marka muraajacaas yar baan ku siinaynay oo ku saacidaynay laakiin ayagu booliis shaqeeyay oo salgeeda deegaanka ka shaqeeyay maaha booliis hadda la qoray iyo booliis hadda la qoray maahan waa booliis shaqaynayeen muraajaca intaa kadib alleena abuurtay ee suuqay keenay waqta maanta koowaad iska alxamdulillah maanta labaad waxaan celinaynaa dadka walaalaha ah ee shacabka deegaanka ah ee la soo dhaweeyay maamul iyo ciidan iyo dhalinyaro iyo hooyooyin nabadeed intaa kadib meesha waxa weeye waa afbar waaqo ardayda wanaagsan in badan baa la iskuul maray laakiin marka waa kuwaan arrimaha bulshadu waa gaabis bay ku yihiin caafimaadka hadda aan dhisnay oo iskugu darnay lacag communitigu aruuriyey lacag yar oo hay-adaa keenay saldhigii waa noo qabiyo guriga waa dhisanay waa u baahannahay facility badan baan u baahannahay fadhi baan ku sheekaysan doonaa laakiin warbixinta ee deegaanku wuxuu u baahan yahay xaq dhab ah deegaamada aan soo marnay intii aan soconnay run ahaantii ma aanaan dareemaynin caajis waxaana sabab u ahaa waxaa isheennu qabanaysay wax badan oo waxqabad u baahan meelba meesha kale isheennu waxay qabanaysay inay u baahan tahay wax ka qabasho mid dawli ah iyo mid iskaashi dadweyne ah intaba meelo badan ayaan soo marnay oo iskaashi dadweyne wax badan looga qabtay hadday tahay waxbarashada hoolkii nabadda oo galmudug oo ay dhiseen bitaale oo intuu leeyahay aad ku farxayso waxa lagu qabsaday isxilqaana lagu qabsaday waxa ka dhiman waa wax aad iyo aad u yar waana ku farxaysaa meelihii aan soo marnay dadku inuu ka muuqdo baraad iyo wax wada qabsi isku tashi u badan nabadgelyada oo aad iyo aad u fiican oo intaas aan soconnay 2 maalmood aanaan arkin qori wax ammaan darraa iyo wax dhibaataa iyo wax foolxumaa saraakiisha iyo ciidamada nabadgelyada oo intaas uga shaqaynaya isxilqaan aan hubno inaysan helaynin xuquuqdii intaas ay u baahneed inaysan helaynin haddana soo majeystayaasha had iyo gooraale maaragtaa u taagan ogolna inay ku shaqeeyaan mutadawacnimo ay walaalahood ka xigsanayaan nabadgelyada xumada iyo wixii colaad iyo dhibaato ah haddii aan galo qismada tooska aanu leeyahay oo waxbarashada
dhulkii aan soo marnay dhammaantood baraarug waxbarashaa ka jiray meeshii la rabay yaysan gaarin ha ugu badnaato ardada oon iskuulkii la keenaynin laakiin culimadii iyo dadweynihii guddigii degmooyinka aan la soo kulanay dhammaantood waxaan ku ballannay in arday ayaga laga rabo annagana xuquuqdii macallinkii wax bari lahaa iyo waxay wax ku baran lahaayeen nalaga rabo aad ugu mahadcelinaya aad uga mahadcelinaynaa waxaad ogeydeen madaxweynaha galmudug inuu halkaa yimid axmed cabdikaari qoorqoor hadduu halkaa yimid wixii uu bulshada u sheega waxay ahaayeen bulshadii gacnaha la kala baxda oo iyadu wax isku dayda oo 40% wax isku dayda dawladda galmudug waxay kaalmaynaysaa 60% inay bixiso hadday sidaas tahay waxaynu ka soo bilownay rooro dheer bitaalaynu nimid bitaala markaynu nimid colaadaha gundhiga ah ee annaga iyo xooladaaqsinta galmudug iyo xooladaaqsinta puntland ka dhaxayn jirtay ee abtirsiyaha noqotay inaynu nabad u bedello oo aynu dhisno hool haddaynu nahay xuduntii reer bitaale weyn oo gacanteeda aan ku dhisanno oo uu noqdo mid aan ku bedello baabuurta suugaha iyo xabadihii iyo dooxatadii inaan gogol xariira ku bedelno oo aan shuruud ku xirayn oo budul ka yagleelno waxaan u sheegaynaa caalamka inta nabadda jecel dawladda federaalka ah dawladda galmudug dadka samajeclaha dadka wax naga dhexeeyaan ee puntland jooga inaan bitaale goboshu taallo hoolkii la dhisay oo la dhaqan galo haddii sidaa loo sameeyey hoolka guryihii baa ka dhiman musqulihii baa ka dhiman intii baa ka dhiman intaas waxaan rajaynaynaa dawladda galmudug iyo inta kale ee samajeclaha iyo jaaliyaddii arrintaas samaysay in la dhammaystiro hadda ballantaas sidaas ah degmada Afurwaaqo wuxuu ka mid yahay isbitaalkeedii si had u jeedaan baahiyaha ka muuqdo waa dareemi kartaan oo waxa ka muuqdo baahiyo dhowr ah oo xagga daawadii waxaan galnay gaab ah coronavirus oo dunida dhan saameeyay gaabkiisa ayaan galnay waxyaabaha hadda isbitaalka tabanayo ka maqana waa waxyaabo fara badan sida hadda daawooyinka daruuriga ahaa oo naga go'ay qaybo ka mid ah welina waxyaabo ka mid ah way yaaleen laakiin 90% daawadii waa ay go'day muddo waxay naga maqan tahay isleeyahay dhowr bilood ah oo sida hadda gaabkan coronavirus loo galay waa kulliba hay'adii meeshan fagaray jirtay gaabkii ayadana dhinaceeda ka gashay hay'ad Safli UK leeyahay ayaa meeshan fagaray jirtay dhowr qaybood ay u shaqeey jiray qayb qoodin ah iyo wuxuu u shaqeey jiray qayb daawo ah hadda qaybta qoodinta faliilaahi alxamdu wali waa ay jirtaa oo waa la bixiyaa qoodintii laakiin waxa gaab gashay daawadii ayaa naga kala go'day hadda baahiyahana waa iska muuqdaan waa u jeedaan iska faalihii sidii uu faaruq u yahay daawadii keedkii sidoo kale ayadana waa faaruq daawo saasa hadda ma taalo baahiyaha hadda noogu badan waa dhanka daawada